dagaalka waqooyiga Itoobiya ayaa haatan waji kala yeeshay sidii uu dagaalku markii hore u socday ayuu haatan markaliyata isbedelay arrinka yaab kale ayaa ah TPLF ay shalay ilaa maanta ay soo bandhigtay guulo isdaba jooga waxaana haatan ay qabsadeen magaalooyinka waaweyn ee Addis iyo Salambesa iyo markaasi Kooram saddexda magaalo ay haatan dib u qabsadeen magaalooyinkaasi oo hore loo qabsaday haddaba ciidamada TPLF ayaa si buuxda gacanta ugu haya imika Addis ilaa nawaaxiga Salambesa oo ay dagaaladu ka socdaan marka ayaana sheegay in xogaga ciidanka TPLF inay khiyaano u dhigeen ciidanka huwanta Itoobiya Eritrea oo ay u baneeyeen jidka isku xidha Salambesa iyo Addis iyagoo iska dhigay ciidan jabay oo la jabiyay kadib markii ay soo galeen ciidamada huwanta ah magaalada Addis ayaa la sheegay inay ku soo qaadeen ciidanka TPLF oo ay markaasi bay gashadeen baalid afarta dhinac ayay ka mareen ciidamadii huwantaha waxaana la sheegayaa dagaalo isdaba joog oo 5 maalmood in ka badan socday in lagaga dilay ciidamada Itoobiya Eritrea 33,000 oo askari halka in gam lagaga dhigay waa sida ay sheeganayaan warbaahinta TPLF waxaana hadda ay sheegayaan marka in ciidamadii dib loo riixay oo la jabiyay waxa la yiraahdaa farxadkii ciidamada Itoobiya iyo Eritrea haatan waxa ay dhaafeen iskabada Addis farxadkooda Salambesa ay dhaafeen bay yiraahdeen dagaalkuna waxa uu ka socdaa bay yiraahdeen meel 20 kilomitir dhinaca Eritrea xigta oo Salambesa wala iskala tagay waxaana la yaab noqotay hadaba khiyaanadaasi ay marka TPLF dhigtay oo haatan ay sheeganayaan in guulo badan ay ka gaareen dhanka kale TPLF ayaa weerartay ciidamada huwanta ay ku sugan inta u dhaxaysa Aksab iyo Adwa taasoo hakisay duulaankii ciidamada Eritrea iyo Itoobiya ee ku sii jeeday dhinacaas iyo markaa bariga gobolka Tigray dagaalo badan ayaana ka socda nawaaxiga Adwa sida xaqiijiyeen saraakiil sare oo markaa ka tirsan ciidamada markaasi Itoobiya laftarkoodu dhinaca kale warbaahinta TPLF waxa ay sheeganayaan in ay xoogga TPLF ay qabsadeen magaalada Kooram iyadoo waxay ku taalaa koonfurta Tigreega hore waynaga u soo sheegnay in markaa ciidamada huwanta ay qabsadeen Alamata iyo Kooramba oo maogtahay xitaa masawiraan ka soo qaadeen ciidamada Itoobiya iyo markaa maleeshiyadka Axmaaradu oo Kooram magaalada Kooram dhexdeeda bangiga weyn ee markaasi Kooram ay isku soo horsawireen haddaba magaalada Kooram hore ayaan moogtay barnaamijyo hore ku soo qaadanay waa naga sheegnay waa magaalo buuraleyda oo gabaad badan oo meelo badan lagu gabadale marka si fudud ku qabsan maayaan ciidamada Itoobiya ay niriyo moogtay sida ay falaqeynayeen dadka militariga ku urgala oo ay lahaayeen magaaladaasi si yar fudud TPLF laga qabsan maayo laakiin waa laga qabsaday si yar fudud waana la yaab bay noqotay markay tunba afarta dhinac laga maray baa la yiri TPLF waa la waayeen laakiin hadda waxa la sheegay khiyaano weyn in ay dhigeen oo ay iska dhigeen sidii wax jabay oo markaa ay ka yaaceen kadib markii ay ku soo xoomeen beelan ciidamada Itoobiya iyo ku huwanta ahaa markaa maleeshiyadii la socday ay markaa Kooram qabsadeen ay haddana markii dambe ay ku soo kaakaceen TPLF oo afarta dhinac ay ka soo mareen waxaana hadda la sheegayaa in ciidamadii Itoobiya iyo markaa maleeshiyadkii Axmaarada Kooram qabsaday in ay subtida u qabteen oo markaa kumanaan ay ka dileen waa sida warbaahinta TPLF ay ku soo waramayaan haddaba waxay hadda sheeganaysaa TPLF in ay wax ay dileen iyo waxay qabteen iyo wax dhumay wax dhaan raacay ay ka dhigeen markaa ciidamadii huwanta Itoobiya Eritrea iyo maleeshiyadii la socday sidoo kale waxay hadda sheeganayaan TPLF warbaahintoodu in ay ku sugan yihiin ciidamada TPLF buuraleyda markaasi Sobol oo ay qabsadeen aagaas oo dhan arrintan ayaa ah waxay tahay markaasi yacni soo noqoshadii ugu yaabka badnayd waa surprising comeback ciyaaraha kubadda cagta baan ku naqaanay in moogtay 5 gool inta 4 gool lagu dhiibo iyadoo 4 gool eber tahay oo daqiiqadii ugu dambeysay marayso oo 5 ay gool ay dhaliyaan oo kala moogtay la oran jiray waa soo noqoshadii ugu yaabka badnayd tii lamid ah TPLF haatan samaysay baa leeyahay nimankii la moodayay inay jabeen ee moogtay cagta la mariyay ayaa haatan magaalooyinkii waaweynaa dib u qabsaday waxaana sheegayaan in haatan dhimashada iyo dhaawaca ciidamada huwanta la kala garan laayahay oo ay cagta mariyeen
haddaba dhinaca kale warbaahinta dowladda Ethiopia iyo markaasi taageerayaashoodu arrinkan may xaqiijin in moogtay wax laga qabsaday in moogtay TPLF ka guuleysatay ma xaqiijin laakiinse waxa laga dareemi karaa maalmihii ugu horreeyay guulaha istaba joogga gaaraysa dowladdu warbaahinta soo tabinaysay كل مجالة كمجالي فرنيين أكتيفيستياش الدولة وحي شيء يقولها جارين لكن شنتي مع الموضوع جدا بيسي قد يقرأ ولا دافع كرجوعي وحنا لا يابنا وحي لا مستمر كحكومة مقتي إلا يد حكوس على بالوروني مقالة أي كوسي شيدان marka halkaas ay dhaafi kari waayeen hadii garad waxa la sheegay marka dagaalkii ugu yaabka badnaa shanta maalmood in halka ka socday oo waxa xaqiijinaya bay leeyihiin dadka u kuurgara arrimaha geesku de aamusnaantan moogtay guulihiisa jooga sheeganaysa xukuumaddu ayay aamustay marka taa laftarkeeda ayaa shaki dhalisay iyadoo la shakisay TPLF maanta sheegeen guulahan isdaba joogga ee ay gaadheen waxaana jirtay marka 3 maalmood ka hor in generaalada hogaaminaya marka TPLF general Tadesse Wareda iyo markaasi Debretisia Gabriel Michael oo madaxweynoogu uu lahaa waxay noqonayaan magaalooyinkan ay soo galeen markaasi hadda ay qabsadeen ciidamada huwantaahi qubuurahoogii marka waa la yaabana hadalkaasi waxaan la islaa waa nin deeska riyoonaya soo tudmiga la qabsadayba waxaan leeyahay warbaahinta dawladda xitaa ku doodaysay lahaayeen maalin cad buu riyoonaya isaga laftarkiisa la soo qabanaya oo moogtahay awoodan ma jirto TPLF ay leedahay ayaa lagu doodayay laakiin hadda markii ay adiiqra daafi kari waayeen ciidamada huwanta ayaa shaki badan dhashay waxaan la islaa talo maxaa haya oo moogtahay u socolayna waa kuwa lahaa ilaa maqalan qabsanaynaay maxaa joojiyay bal isweydiinayay tan haddaba maanta ay TPLF sheegatay baa markaasi la rumaysan karaa bay leeyihiin dadka falanqeeya arrimaha geesku waayo iyadoo oo marka laga waayay hore socod intii hore loo guul baad sheeganaysay markii ay dad shib tiraadid oo markaad muddo aamusnaatid dhinacii kale ka soo jeeday markuu guusha sheegto guushoodii ayaa markaasi la aaminayaa bal saasay ku doodayaan dadka falanqeeya arrimaha geesku waxaynu ognahay in labadii toddobaad ee ugu dambeysay kooxda TPLF sutida loo qabtay oo dhammaan magaalooyinkii waaweynaa ee Tigreega laga saaray oo la sheegay markaa in la jabiyay oo godadkoodii iyo markaasi dhufaysyadoodii buuraha ay markaasi u fakadeen ciidamada huwanta Itoobiya Eritrea ayaa la sheeganaya guulo isdaba jooga iyagoo oo magaalo kalba furanayay oo markaasi calanka ka taagayay kadibna sheegay in adeegyadii asaasiga loo soo celiyay oo xukuumadda Itoobiya ay markaasi kolba magaalo daaha ka rogaysay oo ay sheegaysay in hadda ayagu ka taliyaan haddaba labadii toddobaad ee ugu dambeeyay waxay u ahayd TPLF maalmo madow oo waxa la moodayay marka waabay u dhamaatay baba la islaamkii TPLF oo marka haatan xitaa awood ay ku gorgortamaan wada hadallada nabadda ee markaasi ka socda South Africa ayaaba u muuqatay mid aan rajo lahayn way hadii laba kooxood ama laba ciidan oo dagaalamaya ama laba dhinac oo dagaalamaya ay mid ka mid la jabiyo taa macnaheedu awoodii gorgortanka meesha ka baxaysa moogta waxaana marka inta badan ay ku doodaysay xukuumadda Itoobiya in aanay jirin cid ay la gorgortantaa oo marka TPLF cagta mariyeen laakiinse arrinka yaab kale ayaa ah TPLF ay shalay ilaa maanta ay soo bandhigtay guulo isdaba jooga waxaana haatan ay qabsadeen magaalooyinka waaweyn ee Adiiqrat iyo Salambesa iyo markaasi Koorab saddexda magaalo ay haatan dib u qabsadeen magaalooyinkaasi oo hore loo qabsaday haddaba ciidamada TPLF ayaa si buuxda gacanta ugu haya imika Adiiqrat ilaa nawaaxiga Salambesa oo ay dagaaladu ka socdaan rarka ayaana sheegay in xogaga ciidanka TPLF inay khiyaano u dhigeen ciidanka huwanta Itoobiya Eritrea oo ay u baneeyeen jidka isku xidha Salambesa iyo Adiiqrat iyagoo iska dhigay ciidan jabay oo la jabiyay barnaamijkan intaas ugu dhayeetay kulantideena dambe nabadgelyo